ugu horeyn qabanqaabiyaasha kulanka weynahan marti sharafta shirkadaha saxaafadda cid kasta oo ka soo qayb gashay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxad iyo sharaf bay noo tahay kulankan lagaga hadlayo ICT-ga oo aan anagu qayb ka nahay aanu nahay sectorka internetka shirkadda fiber optic aanu nahay aan isleeyahay maanta halkudhigani idinkaabuu idinka hadlayaayo teknolojiyaddu waxay fura u tahay waa horumarka sooyaalka somcable marka loo eego intaanay somcable saaxadda soo gelin internetku siduu ahaa helitaankiisu siduu ahaa maanta siduu yahay sooyaalkaasi iyo halkudhigani waa uu isleeyahay xaqiiqatan intii aanu jirnay oo de somcable iyo so waa kala labo shirkadda intii aanu maxay ahaydey inaanu si ganacsiyo commercial u soo galno oo bulshada u soo gaadhsiinaa waa aakhirkii 2015 haddaynu xusuusteena dib u celinno qof kasta sida uu maanta access ugu leeyahay helitaanka internet umuu helay kaba soo bilow inaynu heli jirnay internet aynu doonan jirnay oo aynu wada xasuusanahay oo ayna waqti walba u helayn waqti kooban lacag kooban lacag aynu ku bixinaynay laakiin imika qofku isagu isku hayo helitaanka internet taasina waxay tahay oo aan door shariifa ku leenahay haddaanu nahay somcable somcable bulshada isticmaasho kaliya uma aha fursad waxay fursad u tahay shaqo abuur ay Soomaaliland ku soo kordhisay waxay hooy u noqotay qarnigii 12aad barashada dunida waxa ku soo kordhay aqoonta loo yaqaan technology-ga dhalinyaro badan oo aynu leenahay aqoonyahan badan oo aynu leenahay ayaa aqoonta weeleeyay oo soo bartay dadkii aqoonta bartay waxay u baahdeen goobo ay aqoontoodii ku tijaabiyaan qayb weyn baanu ka ahayn in ardayda jaamacadaha ICT-ga ka soo baxay ay nagu soo xisaabtamaan waxa aanu qayb weyn ka noqonnay in ay ardayda jaamacadaha waddanka ICT-ga ku bartaa ay helaan goobo ay wixii ay barteen iyo aqoontii ay barteen ay ku carbismaan oo ay layli shaqo ku helaan oo ay xirfadoodii ku helaan oo ay kambasyadayada iyo sektaradayada iyo meelaha ICT ku noo yaalo si furan oo hufnaan ah ardaydaasi maxay heeday ay wax ugu bartaan oo ay ka baxaan aqoontii theory-ga ahayd helaan inay maxay heeday annaga wax nagu dhex bartaan oo ay nagu layliyaan oo marar badan oo aan ka waramay raggaas oo meelo kale u shaqo tagay lagu soo bogaadiyay lagu soo amaanay inaanu anagu soo laylinay marka ay ardayda ICT-ga laga yimaado fiberku in badan buu dhulka soo maray oo maxay ahaydey uu qodan yahay dadka safarada u baxaa waxyaalaha inooga sheekeeyaan waxa ka mid ah hadday tusaale ahaan ay ku lumaan Somaliland dhexdeeda ay tuulooyinkay marayaan nin ari la joogay oranayaan arwalaha tuulada xagga wadada xagee ahayd ninka markay siratoydaan ay sheekaystaan waa nin xayntiisa ariga looda geela ama beertiisa iska jooga buu yiraahdaa ha xayntana bartanaan ku haystaa shaqaalaha somcable-na waanahay marka waxaanu abuurnay in qofka beertiisa jooga beertiisa qodanaya isagoo geeliisi la jooga isagoo arigiisi la jooga inuu haddana helo fursad uu ku shaqaysto fursad uu shaqaale uu ku noqdo oo maxay ahaydey ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray isagoo dhulkiisa jooga inuu shaqaale noqdo taasi waa shaqa
maxay ahaydey aan shaqo abuurka ay Somcable soo kordhisay xawaalaha waan ka hadlay waanu ahayn shirkadii ugu horeysay fiber optic sidoo kale internetkana shirkadda muddada gaaban ka aasaasan oo 6 sano u dambeysay shaqaynaysa farxad bay noo tahay inaanu deegaanada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee aanu ka shaqayno oo 80% ah in maxay ahaydey aanu hormood u nahay cidda dadweynaha institutionadu ay ku xidhan yihiin kulankan iyo shirweynahan waxaynu ku gorfayn doonaa sidaynu u sii horumarinaa tiknoolajiyadeenna sidaynu meel walba u sii gaarsiin karnaa sidaynu maxay ahaydey Somaliland oo qaaradani ku taalo lagu bajiirto Somaliland oo tiknoolajiyadeedu horumarsan tahay Somaliland oo tiknoolajiyadeedu meel sare gaadhay sidaynu u sii gaarsiin karnaa meel sare oo aynu dunida horumartay tiknoolajiyad ahaan u sii gaarsiin karnaa kolley baanalada dambe iyo doodaha dambe iyo kunalada dambe ayaa teamkayagu ay maxay ahaydey kaga sii warrami doonaan annaga sharaf bay noo tahay mar labaad iyo mar saddexaad wasaaradda waanu ugu hambaliyaynaynaa oo maxay leedahay inay kulan la isugu yimaado shirkadaha aanu asxaabta nahay waa ku hambaliyaynaynaa in la wada sheekaysto maxay ahaydey aqoonta la wadaago la isdhex galo oo maxay ahaydey cid walbaaba ay doorkeega qaadato soo bandhigto sanadka xigana aynu inagoo xaggan aynu joogno ka sii durugnay aynu isugu nimaadno allah weynu hayna xifdiyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh isgaarsiinteena soo